kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan. duqeymo culus ayaa loo geystay dad rayid ah oo aan markaasi waxba galabsan. dadkan ayaa ku sugnaa tuulo aan ka fogeyn deegaan lagu magacaabo Baghdad oo markaasi u dhaxaysa Baghdad iyo sidoo kale Basra. duqeymaan ayaa waxaa geystay sida wararku ay sheegayaan ciidamada Mareykanka ee Africom loo yaqaan. dadkan oo u badnaa dad ehel iyo qaraabo ah balse beeraley ah ayaa habeen ka hor lagu duqeeyay deegaankaas. dhacdada ugu yaabka badan ayaa waxa ay ahayd dadkaasi in gargaar loo fidin waayay isla mar ahaantaana lagu eegtay dhaawacyadii iyo dhibaatadii ka soo gaartay halkaas. waxaana la moodayay sida ayagu ay sheegeen dagaalamayaasha al-shabaab. waxaana adkaatay in dhaawacyadooda ay soo gaarsiistaan goobaha caafimaadka oo ay ugu horeyso isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. dadkan oo haddaba warbaahinta la hadlay shalay ayaa waxa ka muuqatay tiiraanyo iyo murugo. waxa ayna sheegeen dadka goobta ku geeriyooday in ay ka mid ahaayeen dad caruur badan iyo hooyooyin weliba soonna. hooyooyinkaas iyo caruurta oo beerahooda ka imaaday ayaa waxaa lala eegtay gantaalada laga tuuro diyaaradaha. waxa ayna sheegeen in dawladda Soomaaliya ay kaga fadhiyaan in ay wax ka qabato. dawladaha Soomaaliya taageera oo duqeymaha u geysta inta badan duqeymahan ayaa noqday kuwa soo noqnoqdo kuwaasi oo dhibaato fara badan ay kala kulmaan dadka beeraleyda ee ku sugan gobolada Shabeellooyinka oo markaasi beera dhaqato u badan. dadkan oo haddaba warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay dawladda Soomaaliya aga fadhiyaan dhibaatadii dhacday in markaasi ay xal ka keento. waa kuban ayagoo warbaahinta la hadlaya. dii la aruuray dadku waxba qabsan waa beerihii bay tabcanayeen, beerahoodii baa laga eriyanaya, guryahoodii baa laga eriyanaya, halkee baa loo cararaa. muslimnimo haddii jirto oo dadnimo jirto oo dawladii jirto dadkan waxa loo qabto. haddaan loo qaban karayna dee waa warcada wax way qowda maqashii waxna u qaban. saddex caruuri hooyadood baa dhintay, mid baa madaxiisii meel laga soo raadiyay, gobolkii kala saaka la helay, ilaa xalay baa dhiig loo baxay. xamar ma gawaadhi baa laga waayay, ma diyaarada laga waayay. dhibaata meesha taala rafaada yaala. madaxweynaha Xasan Sheekh waxaan leeyahay ummadda wax u qabo. haddaan u qabanayna dee kursiga iskaga deg, magacuyaal ha u fadhiin. ummadda ama wax u qaba ama ha u qaban. inaa ilaahay raajicuun. wax maanta ka dhaca waa hal famil oo maanta ayaga dhan ay yihiin dad beeraley oo meel dhooban oo lagu rido oo hal famil ka soo jeeda. ilaahay aqaysta miya haddii dad la dhawacana dadka meelay joogaan hala aasto hala la waxa. laakiin hooyooyin isbitaalada jiifaan wax gurmad oo u sameeya hataa inaysan jirin. marka isbitaalka la geeyo hataa dadka badanaan intaa loo soo daabguray. ilaahay aqismaan saan cadaalad bee jirto. dadka meelay joogaan waa la ogyahay ha loogu tago. dhacdadan ayaa ilaa iyo maanta ilaa xalay ilaa iyo shalay la hadalhayay guud ahaan Soomaalida meel walba ay joogto, ayagoona markaasi baroor iyo oohin isugu daray ehelkoodii caruurtoodana ku waayay ayagoo waxba galabsan. beerahoodana xilligaas ka imaaday isuna diyaarinayay xilliga afurka. diyaarada markaasi ayaa lala eegtay, madaafiicda noocyada kala duwanna waa loo adeegsaday dadka rayidka. weli dawladda Soomaaliya ma aysan ka hadlin dhacdadan daawade. haddaba sidee kula muuqataa adiga? qaybta hoose ee commentiga ayaad ka soo raayay dhiiban kartaa. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.